isniintu ay soo galaysaa ciidanka booliisku soo qabteen isagoo ku sii socda gurigiisa. xukuumadda iyo hay'adaha ammaanka ayaan ilaa hadda ka hadlin xadhigga Suldaan Cadagude iyo sababta loo xidhayba. hase yeeshee madax dhaqameedka Somaliland oo saxaafadda la hadlay shalay ayaa ka hadlay xadhigga suldaanka iyagoo xukuumaddana ugu baaqay in si degdeg ah xorriyadiisa loogu soo celiyo. sida ay sheegeen xogo kala duwan oo soo gaadhay Saab TV, madax dhaqameedka deegaanada Maroodi Jeex, Togdheer, Sanaag iyo Saaxil ayaa waxa uu socda shirar iyo kulamo hoose oo ay kaga arrinsanayaan xadhigga Suldaan Cadagude iyo sida looga jawaab bixin karo. xadhigga Suldaan Cadagude ayaa ku soo beegmaya xilli uu khilaaf adag u dhaxeeyo xisbiyada mucaaradka ah ee uu suldaanku sida adag u taageeray xukuumadda talada haysa. halka sidoo kalena uu xadhiggiisu ku soo beegmayo wakhtigan oo ay socoto waan lagu xalinayo muranka siyaasadeed ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka ee salka u ah khilaafka u